السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan hadda ku socdaa wadada Makka al-Mukarrama askar lugeynaa lugahan la soo baxay maadaama maanta wax aan qabaneen aysan jirin isbuucan dhan isbuucii ka hore wax la qabanayo oo badnaa ma jirin wadada way xiran tahay walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican waliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo buuxda weeye walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican waliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka magaalada hadda bandow u bilowday haddii la dhahay hala joogo xaafadaha ani kule aad waa lugeynayaa haddii la dhahay hala joogo xaafadaha dhibaato waa dad badan dhibaato ku tahay ana hadda waa soo lugeeyay ku dhawaad horii socod 8 kilomitir ama 9 kilomitir oo kala soo socday marka xamar kule bandow waa ka bilowday waa arkayna meesha ku dhamaatay waxbarashadii fasax wax walba fasax hadda waxa ay guryaha lagu soo arooray marka isla soconeena janaalka munir marsi saaxiibada ku xiran soo dhawaada magaalada quruxda badan aan ku soo lugay ninkaas ay socdo bismillaah haddaan soo laabtay saaxiibada janaalka munir marsi ku xiran waxaan ka soo laabtay sida muuqaalada hore ku aragteen magaaladan joogana fahmi kartiin Muqdisho waaye marka ujeedadu waxay ahayd inaan soo qiimeeyo bandowga la sheegay sida kale wadooyinku ay xiran yihiin laakiin boqolkiiba boqol ma xirnaa boqolkiiba 40 aan leeyahay karaa xiran tahay maxaa yeelay dadkii aad u badan marka xakameentooda waxooda u jeeday bari wixii ka bilowday bari dambe oo kale inay boqolkiiba 80 inay xirmaysa u maleynaa boqolkiiba 90 wadooyinka marka hore anaga fasaxan ku jirnay waxbarashadii iyo wixii dhan xaafadahaas aniga habeenkii badanaa waa socon jiray 4 isbuuc oo waxbarasho la'aantii ay jirtay xaafadaha online-ka lagu qaadanayo mar walba socon jiray ku dhawaad 6 kilomitir 5 kilomitir oo socda sameyn jiray haddana waa soo socday kulay 8 kilomitir oo kala soo socday galabtaan galab jumca ay tahay kulay qofkii janarkii ku xiran oo Muqdisho joogo waxaan kula talin lahaa inuu xaafadka joogo maanta muuqaalada aan soo arkay ama dadka aan soo arkay waxay ahayn dad aad u tiro badan 4 isbuuc ka badan ay socotay wacyigelinta oo in guryaha la joogo oo la qaato maski face mask oo geedka wajiga gashnaa gacmaha iska dhaqo kulli ma muuqdaan wax kuwa la raacay talooyinkaas kuwa la raacay ma muuqdaan ciladana waa anaga oo hay Soomaali ahaan marka Soomaalidana waa tala sheegay in Sweden tirada ugu badan dadka ku dhintay coronavirus u dilay Soomaali ahaayeen UK ama Ingiriiskana Soomaali badan oo cudurka ku dhimatay jirto taasna waxa loo aaneynaa Soomaalida oo aan qaadanayn talooyinka waxyaha caafimaadka marka waxaan rajeynayaa insha Allah in muuqaalka intaan ku soo gabagabeeyo waa ku mahadsantiin daawashadiina marka talooyinka aan qaadano Ilaahay hana badbaadiyo cudurkan waa musiibo waxaan rajeynayaa in Ilaahay naga badbaadiyo Ramadaanka nagu gaarsiiyo caafimaad oo nabad aan ku sonno anaga khayr qabna sida muuqatana hadii maanta masaajidda qaar la xiray hadii masaajid sidaan ay u xirnaadaan waxa cilad weyn waay oo ani hadda oo kale soonka hore aad waxaan xanuunsanaa taraawix badan ma tukan marka soonka waxaan sidahay wax badan aarso laakiin dib male insha Allah isla socon doonaa muuqaal kala soo duubi doonaa ama santiin soo dhawaada assalaamu calaykum